ciwaankeedana uu yahay adaabta khilaafka. waxaa inoo soo jeedin doonaa in sha allahu tacaala الشيخ مصطفى إسماعيل حاج هارون، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد، فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إخوتي في العقيدة، إن كستو ولالكي يقدم يكتل مامي موضوع آداب الخلاف، لكن وحين سكدي إن نكبل عليه إن نكدق موضوع خلافك يا أسبابها كينا iyo sida loo xallin karo, anigoo weliba isku dayi doonaa inaan qaybta u badan saaro sidee loo xallili karaa ama dhibtaasi loo damin karaa. taa waxa aan u doorbidaya waa mashkila dadka muslimiinta aad ugu badan dhibna ku haysa. khilaafku waa mashkilad muslimiinta ka haysta. khilaafku waa mashkilad muslimiinta ka haysata nolosha dhammaanteedba. khilaafku waa mashkilad muslimiinta ka haysata nolosha dhammaanteed. waa dhibaatooyinka ugu waaweyne maanta aad mooddo inay astaan u tahayba dadka muslimiinta meel kastoo isugu yimaadaan, diin ahaan, dhaqan ahaan, dad ahaan, wax walba waxaad mooddaa in khilaaf la geliyo wakhtiyadan dambe. waxaan jeclay mawduucaasi inaan guud maro qaybo ka mid a, qaybo ka midana aan isku dayo markaasi inaan xal u raadin karno. ugu horreyn waxaan leenahay inay dadku kala nooc noqdaan, oo bini aadamku uu kala ra'yi noqdaa, oo uu kala midaba noqdaa, oo uu kala wejiye ahaadaa, oo cuquushoodu ay kala badnaataa, oo siday wax u fahmayaan kala jaad noqotaa, oo midabadooda uu kala nooc noqdaa. waa wax ka mid ah ilaahay aayaadkiisa marka hore. wa min aayaatihi khalqu الsamaawaati wاlard waاkhtilaafu alsinatikum waalwaanikum ina fii dalika laaayaati lilcaalamiin. waa wax baynu leenahay sida wejigeennu u kala gedisan yahay ayay maskaxdeennu u kala gedisantahay. sida basamaat ilyad, gacantaan qof walba suulka markuu wax ku saxeexo uu mid gaara u leeyahay, ayay maskaxahayna saarina u kala gedisan yihin. idan inaynu kobi isu noqonno, yacni qof qura inuu dadku wada noqdaa, iyadu waa hayru macquul. ilaahay baana ugu talagalay subxaanahu wa tacaala inay saatan u kala gedisnaadaan. weliba waxaan leenahay ha kala gedisnaatee isku wada garaad maaha, isku in wax kama wada aragto. ilaahay baana qur-aanka ku leh wakhuliqa alinsaanu daciifa, dacfi ayaa dadkao dhan iskaga wada jira. waxaan kaloo leenahay ilaahay baa ballan qaaday subxaanahu wa tacaala hadduu doonayo dadkan iyo noloshan iyo waxan oo dhan mid qura inuu ka dhigo, laakiin inuu u doortay inay sida tan ahaadaan. walow shaaa rabbuk lajacala annaasa ummatan waaxida walaa yazaaluuna mukhtalifiin ilaa man raxima rabbuk walidaalika khalaqahum. ilaahay baa wuxuu leeyahy subxaanahu wa tacaala hadduu ilaahay doonayo dadkoo dhan wuxuu ka yeeli lahaa ummatan waaxida, nooc keliya alla ka dhigi lahaa. laakiin ilaahay baa wuxuu leeyahy walaa yazaaluuna mukhtalifiin, kama zuulayaan inay kuwa iskhilaafsan ahaadaan inta uu alla u naxariistay mooyaane. in iyadu naxariis heshay oo naxariista xagga alle ka timaada ee ilaahay qur-aanka ku leeya wamaa arsalnaaka ilaa raxmatan lilcaalamiin, naxariistaasi inta hesho mooyaane inta kale saas bay isu khilaafsanaanaysaa. ilaahay baana walidaalika khalaqahum. waxaan leenahay waa wax caadiya marka hore in dadku waxyaabaha qaar ku kala gedisan yihin, bal ee adiga iyo aragtidaad shalay rumaysnayd berri inaad rumaysnaan baa la arkaa.
talooyinku siday shalay kuula muuqdeen maanta marka macluumaadkaagu kordhaan ama aragtidaadu korodho sidaad shalay wax u arkaysay inaad u arag baa la rabaa ayaa dhacda. laakiin khilaafku waa laba nooc, ama waxyaabaha dunida yaaliya bini aadamku laba qaab buu u fakeraa. dadku inta badan wuxuu iskhilaafsan yahay markaan xaqiiqada lahaynin. xaqiiqadu markay maqan tahay ayaa mutuhisku jooga. hadday xaqiiqadu joogto mutuhisku wuu dhammaadaa. maalan scienceska waxyaabaana iyagu inoogu bixiyeen natural sciences, naturena ma jira, ilahay unbaa abuuro makhluuqaadkiisii. pure scienceska waxaa la yidhaha maalan dadku isku waafaqsan yihi, aragti ma kala leh. masalada cilmiga scienceska hadduu buudi soo helo iyo hadduu kristan soo helo iyo hadduu muslim soo helo waa tii uun, waa qaacida waaxida. waayo laab baa la geeyaa, dabeetana waa la tajribeeyaa, dabeetana xaqiiqadaa caddaata. xaqiiqadu markay caddaatana waa iskaga mid xaqiiqadan qofkii caddeeyey inuu kristan ahaa iyo inuu muslim ahaa iyo inuu buudis ahaa. saa daraaddeed bini aadamku scienceska waxay u yaqaaneen iskuma khilaafo, ama natural scienceska. laakiin waxaa artka la yidhahdo isku khilaafa, ama human scienceska waxay yidhahdaan alculuum alinsaniya. human scienceku ma aha scienceska bini aadamku shaqale, waxa weeyaan scienceska caqliga bini aadamka loo tiiriyo isagoo asalka u yihi. waa falsafad, waa dhaqaale, waa siyaasad, waa maamul, waa aragtiyo, waa dhaqan, waa tarbiyad. waxaasoo dhan bini aadamku isku kala gedisan yihi. waayo xaqiiqadiisa aan caddayn, dabeetana qoloba ra'yay ka dhiibatay, qoloba sibay ula muuqatay, qoloba sida ula muuqatuunbay taagan tahay. laakiin waxaan leenahay waa min raxmat illaahi caza wajal waxaa ka mid ah inaanu bini aadamka ku daynin kala fogaanta ay kala fog yihiin ama kala aragtida yihiine inuu u soo diray rasuul muxameda calayhi salaatu wasalaam oo uu diinta xaqaa ugu soo diray si uu u kala caddeeyo fiima ikhtalafuu fiih. waxay dadku isku hayaan, rusushuba waxay u timaadaa inay kala caddayso maxay fiima ikhtalafa annaas. waxaanaan dadku ra'yiga isugu keenaynin ayay rusushu u timaadaa inay usuul keento lagu kala baxo. haddaba intaanan taa u gudbin waxaan guud marayaa masaa'il had iyo goor culammadu ay tilmaamto a wada taqaaniin. khilaafku bay culammadu yidhahaan guud ahaan waa 3 nooc. midi waa khilaaf ammaan ah, in la iskhilaafo ay sax tahay, oo waa ka uu xaqu yeedhiyo ee looga dan leeya in xaqa lagu sugo oo baatilka lagu dumiyo, sida khilaafka u dhexeeya mushrikiinta iyo dadka mu'miniinta ah, ama mu'miniinta iyo ahlu kitaabka iyo ahlu bidaca iyo ahlu fusuuq iyo waxaasoo dhan. waayo qolana xaq bay taagantay, qolana baatil bay taagantay. inaan lagu dayanin ama loo ekaanin gaaladoo dhan khilaafka ah, in gaalada la khilaafo iyo waxeedu muctaqidaadki iyo afkaarti iyo waxaas kaas isagu waa xaq. mid kalena culammadu ay ku daraana waxay dhahdaan alkhilaaf takhsiibi, waxay ku tilmaamaan khilaafka wax dhalinaya. yacni waxa weeyaan shuuraynu qabsanay, qof markuu muse yidhaahdo haddii aniga waxaa si ka gedisan aan arkaya inaan na soo bandhigo si ra'yigu u bislaado, qofba qadiyadda uu dhan ka eego dabeetana aynu u gaadhi karno ra'yi bisaylo aynu gaadhi karno, isna maaha ka dembiga. kuwaasoo dhammi waa macquul. khilaafka mid ka midii waa madmuum bay yidhahdaana waa mid xun. waa wixii ay hawada naftu yeedhiso. alhawa hawa nafs, waxay dhahaan hawadu waa marad nafsiya oo licadam alikhlaas uu keenay, ikhlaas la'aan baa keentay. kaasi inta badan sharaa'icdiiyo waxaasoo dhan wuu khilaafsan yihi. waa dan qof uu rabo inuu dadkan u khilaafo, dantiisa inuu gaadho daraaddeed. waa khilaafkay tafriiqiga ku sheegaan, isna waa madmuum. khilaafka mid ka midina waxay dhahdaan waa saa'iqun jaa'is, waa mid iska bannaan. waa ka had iyo goor farciyaadka ka dhaca ee masaa'ilka aqbala in laga ijtihaado, ee aqbala in niqaash laga galo haddii aanu xuduuddiisa ka bixin. waxaan leenahay kan u dambeeya isaga haddaan iska soo koobo waa mid jaa'isa ayay culammadu ku tilmaamaan. waxa isweydiinta leh maxaa keena in la iskhilaafo? in la iskhilaafo maxaa keena? ashyaa tiro badan baa la sheegaa.
culamaduna qadiiman wa xadiidan wax badan baa laga qoray gaar ahaan fuqahada muslimiintu waxay ka mid yihiin dadka ugu badan ee soo bandhiga asbaabta khilaaf keeni karta gaar ahaan alkhilaaf bayna ala'ima alaclaam culamada waaweyn waxyaabahay ku kala ra'yiyiin laakiin mas'alada had iyo goor culamada isku qabtaan iyada waxaan u celin karaa shay waaxid oo ah waa duruuf almacluuma shayga kan la isku khilaafsanyay ama macluumada tan aqoonta loo leeyahay unbay ku xidhantay maalan inuu daliilku labada caalim midna gaadhay midna aanu gaadhin oo saxaabo waaweyn ay ka dhacday taasoo kale maalan markii shaam ay tageen ee daacunku ka dilaacay ee la shiray ee la isweydiiyey meeshan daacun ka dilaacay miyaa laga baxaya mise waa la joogaya lagu murmay iyadoo la iska muransayo ra'yigu iskhilaafsan yahay buu yimi cabdiraxmaan ibnu cawf xadiidkii bukhaari suu sheegayey dabeetana xadiid nebigu yidhi buu calayhi salaatu wasalaam sheegay markii xadiidkii la ogaaday intaha alkhilaafkii u dhammaaday waayo waxa uu muranku uu jiray waxay ahayduun masalada tan baan daliil loo haysan waxaa ka mid a maalan ra'yi maalan caliy ibn abi aalib iyo ibn cabaas iyo masaladan atwalulajalaynka ay yidhaahdaan ay iyagu ra'yiga ka qabeen laakiin xadiidu subayciya uu isna sheegaya caddaynayo ra'yiga saxihi ku yahay yacni waan iska soo koobaya kuwaasoo ma rabo inaan idinku sii badiyo waxaa ka mida baan odhan karnaa in riwaayadda tan ama xadiidkan ama masaladan la deliishanayo midna agtiisa uu ku sugmay midna agtiisa aanu ku sugmin maalan qisatii faatimata bintu qays gabadha saddex lagu furaa inay sukno leedahay iyo inaanay lahayn cumarna sida qabay gabadha tani ay sheegtay ra'yigii cumar mid ka gedisan iyadoo weliba soo naqlinaysa inuu nebigu xukumay calayhi salaatu wasalaam ee cumar uu isna ku adkaysanaya anigu ra'yi gabadheed uga tegi maayo isagoo ixtimaal ah gabadhan inay waxilowday ama aanay si fiican wax u garanay ama caynkaasi oo cumar warkaya gabadha talaaqa saddexdaa lagu furay inay nafaqa iyo leedahay maxay ana laha nafaqa wa sukna laakiin xadiidka islaantani faatimata bintu qays u khilaafsanaa waa inaanay nafaqa iyo sukna toona lahayn maalan waxaa dhici karta khilaafku inuu yahay lafdigan ku soo arooray xadiidka ama qur-aan ku soo arooray oo sidii loo sharxayay ama loo macnaynayay culammadu ay aragti kala gedisan ka yeelatay yacni muraadkii uu alle ka lahaa subxaana wa tacaala aan isku si looga fahmin aw laamastum nisaaga wada taqaanin oo kale masalada waysada ku saabsanayd ama nebigu calayhi salaatu wasalaam xadiidku laa yusalliyanna axad alcasra ilaa fi bani qurayda waa alfaad waadixoo nebiga ka sugnaatay calayhi salaatu wasalaam saxaabada markuu yidhi qofna yuu salaad tukanin maanta casar ilaa iyo inta laga gaadhayo bani qurayda oo lagu duulayay mooyaane dhexda markii la marayay bay salaada qiiro gashay raggii badh waxay dhahan waa tukanaynaa badhna waxay dhahan war waa iska soconaynaa qola waxay dhahan waa tukanaynaayo waxay dhaheen nebigu calayhi salaatu wasalaam weedhana yaan la tukanin casar in halkaa la gaadho dan kale nebigu kamuu lahayne degdega ayuunbuu lahaa ee salaadu waktigu waa waktigeediiyo lama bedelin qolana waxay dhahdeen maya markii hore isagaa nebigu yidhi casarka waktigaa tukada iminkana isagaa yidhi ha tukanina ilaa bani quraydo la gaadho mooyaane bani quraydo aanu gaadhno mooyaane tukan mayna bay dhahen markaanu bani quraydo tagnaa baanu tukanaynaa qolana way iska tukatay qolana way iska safartay way iska socotay maqribka dabadiisii bay tukadeen dhexdaa cadceediiba kusii dhacday laakiin markii dambe ay xaggii tageen bani quraydo ayay salaadoodii tukadeen labada kooxood kooxna nebigu ma maagin calayhi salaatu wasalaam waayo weedhuu nebigu yidhi unbay labaduba doonayeen inay fuliyaan waxaanu leenahay waxaa dhici karta in masaladu ay tahay masale daliilkeeda nina agtiisa ay sugan tahay oo u arkayo daliilkan inuu haabit yahay nina u arkayo inaanu haabit iyo wax u dhowtoonahayn bale laga yaabo laba daraf oo aad u kala fog inay kala joogaan maalan tusaale basiita haddaan idin siiyo alimaam ibnu taymiya raximah اllah wuxuu ku tilmaamaya xadiidu salaati tasbiix wuxuu leeyahy xadiidkaasi waa kadbun calaa rasuuli illah waa been lagu been abuurtay nebiga oo waxba kama asixin a'imo badan oo kalena waa ku raacsiisantay bal asheekh ibnu cuthaymiin wuxuu leeyahay laa ashaku annaha bidca kama shakisni buu leeyahay in salaatu tasbiix salaada la yidhaahdee inay bidco tahay kama shakisni masaladu sheekh culamadaasi ay halkaa ka taagantahay maalan alimaam alalbaniyi nuquushiisa isna wuxuu ku tilmaamaya ama ibnu xajar alxaafid ibnu xajar
mishkaat almasaabiix axaadiista mawduuca lagu tilmaamo marka hadlayo wuxuu tilmaamaya wuxuu leeyahay alimaamu alxaakim iyo imaamu adahabi labadaba waxay tilmaameen xadiidku inuu qawi yahay markaasuu albaani la leeyahay waxa xaq ah siday labadaasi imaam ku tageen waayo xadiidku shawaahid tiro badan buu leeyahy oo qofka u fiirsada uu yaqiinsanaya inuu xadiidkani asal leeyahay anigoo masaladaa ku khilaafaya buu yidhi cid kasta oo wadci ku sheegtay amase baatil ku sheegtay walidalik baa xadiidkaasi masalan alkhatiib albaghdadiy jus buu kaamila buu ka qoray bale alxaafid addaarqutniyi qabla jus kaamila buu isna ka qoray bale alcallaama abulxasanaat allaknawi isna kitaab dhan buu masalada tan ka ururiyey bale alxaafid ibnu xajar wuxuu leeyahay 10 saxaabi in ka badan ama 10 ugu yaraan saxaabi bay masaladani ka sugnaatay masalada ragga kaniisada u sugayaan culimadana waxay leeyihiin waa bidca la asla laha idan qolana agtooda waxa sugnaaday masaladan daliilkay daliishanayeen qolana ma sugnaanin waa masaa'il dhici karta waan iska soo koobaya masaa'ilka fiqiga ay asbaabteeda waayo kutub badan baana laga qoray waa min ahsani ma kutub waxa kamida rafc almalam an a'immat al'alam lil-imam ibn Taymiyyah rahimahullah laakiin waxaan leenahay iyada masalada fiqiga waxay naga filan qawaacid yar oo kooban aynu tilmaamno oo ah asal bay dadka muslimiinta isku waafaqsan oranaya iimaanka xaqa ahi iyo wal-i'tisaam bi diin illah inuu dadka waajib ku yahay uu yahayna waxa hanuuninaya dadka khilaafkooda yareynaya fa in aamanu bimithli ma aamantum bih faqad ihtadaw ba ilaahi wa in tawallaw fa inma hum fi shiqaq wa in alladhina ikhtalafu fi alkitabi la fi shiqaqin ba'id shariicada oo laga tagaayadu ayaa khilaafka badan iyo masaa'ibta oo dhamay ka timaada shayga labaad ee qaacidada ay isku waafaqsan dadka muslimiinta iyo wuxuu yeesna diinta tan inay dhammaystiran tahay alla subhanahu wa ta'ala inuu dhammaystiray khilaafka culimadu wax isku khilaafaan macnaheedu inaanu marnaba ahayn diintii in badlumay ama nuqsaan ay ku jirto ama caynka kan ee inuu yahay un dadka badho daliilku uu cadaan waayo ama si fiican wax u fahmi waayo laakiin diintu inay kaamil total shayga saddexaad aan tilmaamayna waxa weeyaan inaanu jirin imaam a'imada muslimiinta kamida ee maqbuuliinta ah ee cilmiga lahaa ee cilmigooda kalsoonida lagu qabay diintooda amaanada lagu qabay cid u qasdida in ilaahay iyo rasuulkiisa khilaafta inaanay ku jirin ee uu ka imanayay mas'ala kasto ay kitaab iyo sunna ku khilaafaan wa khuliqa al-insanu daciifa ay ka imanayay khata'una ku dhaceen inay noqonaysay isla markaa qaacidada kale taala waxa ay mar kasto oo mid kamida sababtu ay u cadaato ama masalada gafkeedu uu cadaadaba waxay ahaayeen kuwa xaq u soo noqda sidoo imaam Shaafici uu ku tilmaamayay waxaan wali qof lamaan doodin buu yiri ilaa iyo waxaan jeclaysan jiray in ilaahay isaga carabkiisa xaq ku muujiyo isagu inuu xaq carabkiisa ku muujiyo taas waa masaa'il iska caama oo fi baab al-fiqh laga yaabo inay ku saabsan tahay laakiin iyadaan rabay inay iska guud maro waxaan jeclay inaan in badan ka warramo ama si aan tilmaamo al-asbaab al-'amma lil-khilaaf dhamaantii waxa laga yaabaa masaa'ilka ugu badan inaan isku haynaaba inaanay fiqh ba ahayn sababtan weyne keenta inta badan dadku inuu iskhilaafo kow waxa keena dadka in barjahli badan ku sugan yihiin ilaahay baa quraanka wuxuu ku tilmaamay isagoo ahlu kitaabka inooga waramaya fanasuu hadda mimma dhukiru bih faghrayna baynahum al-'adawata wal-baghdaa'a ila yawm al-qiyamah koox baa ilaahay ka waramo alle wuxuu leeyay wixii la faray qayb kamida bay ka tageen jahli baa ku dhacay dabeetana ilaahay wuxuu leeyay waxaanu ku itixaan cadaawo iyo uurxumo iyo iskhilaaf baa lagu itixaamo qofku hadduu mas'ala jaahil ka yahay indhuhu ka ridaawndi soocanka ma qofku haddaanu mas'ala garanaynin inta badan xukumka ka yimaada gaf buu isaga dhaca walidaalika baa ilaahay wuxuu tilmaamayaa للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا dadkii sadaqaadka la siinay ilaahay markuu waramay baa waxa uu alle leeyay waxa kuwa kamida dadka faqarada ee masaakiinta ah kuwaas oo aan shaqaysan karaynin dhibaato haysato
laakiin ilaahay wuxuu ku tilmaamayaa yaxsabuhum اljaahilu aghniyaa wax magaratadu waxay moodaysaaba alla yidhi inay hani yihiin sababtu waa maxay way dhowrsoon yihin laakiin dadka eldheer garatada ahi waxa ay ku garanayaan calaamaadka kale ee ka muuqda dadka kan see daraaddeed jaahilku had iyo goor axkaamta ka soo fushaa inay qalad u dhacda ilaahay tilmaamaya walidalik buu nabigu calayhi salaatu wasalaam min calaamaati saaca wuxuu ku tilmaamayay inay cilmiga kan uu alla faydi doono culammadu intay dhimato ay soo hadhi doonaan dad badan oo wax magarato ahi oo dadku dabeetana ay yeelan doonaan ru'uusan juhala xadiidkii bukhaari suu sheegayay madax aan waxba garanaynin dabeetana inta wax la weydiiyo dadka isaga fatwoon doona oo iyana lumaya dadkana luminaya idan jahligu kow waa sabab ka mid a waxyaabaha dadku inay tafaruqu ku dhaco ummad tafaruqeedu tiro badan yahay haddaad aragto macnaheedu waxa weeyaan jahlaa haysta shayga labaad waa iyadoo dadka badhdana gaara iska wataan oo xaqa iyo xaqiiqada ay u khilaafayaan ara'ayta man itakhada ilaahu hawaah kuwa ilaahay ku tilmaamayay subxaanahu wa tacaala shayga saddexaad waana sida ay inta badan sameeyaan ahlu bidca iyo wixii la nooci walidalik baa mubtadicada inta badan culammadu ahlulahwaa ay ku tilmaamaan shayga saddexaad wuxuu yahay tacasubka waxa loo yaqaano qofkoo intuu cid uun ra'yigiisa iska qaato u arka un ciddaas inay 100% sax tahay ama dhaqan hore ay haysatay iyo caado iyo wuxuu din gaara ha ahaado ama nin caalimo kula weyn ha ahaado dacfigu sidiisubana waa farcun can iddicaa'i alcisma bay yidhaahdaan tacasubku waa farc bay yidhaahdaan can iddicaa'i alcisma waa adigoo le ma gafo markaad tidhaahdo mar kasta aanay xaqa ku taagan waa ma gafo macnaheedu walidalik baa ilaahay wuxuu ku sifaynaya inuu cismada dadka sheegtay inuu khisaalka ahlu kitaabka lagu yaqaan inay tahay aanay ka mid ahayn khisaalka lagu yaqaano dadka mu'miniinta ah waidaa qiila lahum aaminuu bima anzala allah qaluu nu'minu bima unzila calayna wayakfuruuna bima wara'ahu wahuwa alxaqu musadiqan lima macahum ahlu kitaabka ilaahay wuxuu leeyahy haddii la yidhaahdo rumeeya waxa alla soo dejiyey waxay odhanayaan waxaanu rumaynay wixii annagana lagu soo dejiyey wixii ka dambeeyeyna waa ka gaaloobayaan baa alla yidhi xataa hadduu xaq yahay qofka mu'minka ahi ma eego qofka laakiin wuxuu eegaa wuxuu sheegayo walidalik baa abu hurayra jin baa habeenkii timirtiisa kada xadi jiray abu hurayra 3 habeenba qabtay habeenkii u dambeeyey markuu dhagay buu wuxuu yidhi warniyo habeen kasta uu isii daayo uu cabdaa habeenkii dambe wuxuu yidhi warniyo in cilmiyan kuu sheegayaaye cilmigaa qaado iska kaysiida bal sheeg baa la yidhi cilmigaad wada wuxuu yidhi haddaad aayad kursiga akhrido jin dambe balaayad oo dhan waa lagaa xijaabayaa shaydaan dambe ku boobi kari maayo wuu iska sii daayey nabigu calayhi salaatu wasalaam xadiidka wuxuu ku tilmaamayay sadaqaka wa huwa kaduub markan run buu kuu sheegay buu nabigu yidhi isagoo beenaala ah yani xataa waaxid min aljinni buu abu hurayra cilmi ka qaadanayay oo wuxuu sheegayaa khuraafaha laakiin markan midhkani maadaama uu xaq ahaa xaqu meel kasta uu joogo qofka mu'minkii wuu qaataa waxaan leenahay khilaafku wuu tiro batay tiro badnidiisiina xad aad u mashkilada buu noqday anigoo eegaya ina aada u daalantihiin ayaan intaasoo dhan muqadamo yaroo kooban ka dhigaya laakiin waxaan jeclay inaan u gudagallo see loo xallilaa weliba gaar ahaan inagu markaynu Soomaali nahay dhibtaa waynu taabatay hadday waddankii tay hadday abnaa'i saxwatay hadday waxaad moodaa dadkaba inaan qofba qof kala socon waa mushkila qaa'ima fi kulli mujtamacaatina qabiil laysu khilaafay siyaasad laysu khilaafay diin laysu khilaafay nooc kastaba khilaafkii u tiro batay waa mas'ala runtii u baahan inaynu in badan ilmaam siino waa mas'ale xalku aanu fududayn ilaa yaciddu alla u fudaydiyo mooyaane bale waxaan dareemayaa xataa sida dacfigu xal-la'aantu soomaalida halkay ka joogto masalada 3 midun bay ka yaqaaneen xataa muslim badanina uu la qabo haddaynu maanta masaajidkan ku muranno xalkaynu naqaana waa 3 midun inaynu istillo barinta la torriyeeyo laga saaro masaajidka isagoo dhiigu daayo way dhacdaa dadka badh baa xalka sidaa bidaya haddaynu isma qabanno wala xalka waxay bidaa inaynu isashtakayno oo kuwa hore yara dhaamaano waxay dhahay waxba yeena isdileen laakiin loo yarra iyo inaynu wax isu qabanno iyo maxkamada iyo gaalada isula tagno oo maanta oo dhan isashtakayno kuwa ugu niyadda sanle waxay sameeyaan ma taqaanaa
waxay idhahdaan nimankaa la heshiin mayno waxba la yeelan mayne ha qaataan masaajidkaba halkaasaynu mid kale ka jeexanaynaa inagee waa kuwa ugu niyadda fiican leh yacni inana kooda ha haystaane halkaasaynu mid kale ka jeexanaynaa inagee waa xalka qura yaqaanin lakiin waxaasi midna xal maaha waxaa habboon inaynu in badan ka fakerno see wax loo xallili karaa haddii aynan si fiican u fahmin sida wax loo xallili karo waa dhib runtii aad u tiro badan oo weligeedna ina haysan karaysa walidaalik ayaa waxaan leenahay laba dariiqo oo wax lagu xallila baa jira inta badan laakiin mid waliba dariiq bay raacdaa qola waa dariiqada reer galbeedka nimanka reer galbeedka la yidhaahdaa ma waxaad u malaynaysaa inay iswaafaqsan yihin maya oo caalam individualista kullu shay way isku khilaafsan yihin waddan kastoo galbeed oo aad timaado diin ma wada haysto waxba ma wada rumaysna isku aragti maaha qaar waa yamiin midig mutaطarifiina qaar waa bidix mutaطarifiina qaar waa meel dhexdhexaad diinta kuma midaysna qaar ilaahba ma rumaysna qaar kristan bay rumaysan yihin qaar wax kaley rumaysan yihin dhaqan kuma midaysna oo waxa laga yaabaa inay ajnaas kala nooco tiro badan leeyihiin haddana waxaad moodaa burburkoodu ilaa xad inay xakameeyeen waa maxay sababtu hunaaka shay waxiid waxay heleen iyaga aragtidooda qaab khilaafka loo xakamayn karo qaabka khilaafka loo xakamayn kara ay heleen waxyi uma soo degin laakiin can ariiqi tajriba bay ku heleen way isku soo jabeen intaas oo jeer bay isdileen oo isgumaysteen laakiin way socon weyde maray yurub haddaad taariikhdeeda akhrido imisunbaa dagaal ka dhex dhacay imisunbaa boqor la caydhsaday ama wadaad la caydhsaday ama qola ay xoog badatay ama taariikhda yurube hore aad bay u madowday maanta se nooc min alistiqraar bay heleen waxay gaadheen shay ayaanu odhan karno waxay u yaqaaneen musakanaat qofku markuu xanuunsado haddii xanuunka laga dawayn kari waayo maxaa la siiyaa bainkiller baa la siiyaa soo maaha yani waxyaabaha kan uun at least inuu qofka xanuunka ilaabi karo haddii aan xanuunka si fiican looga dawayn karaynin waa in xanuunka la ilowsiin karaa waxay reer galbeedku qaateen dariiqo aan cadaalad ku salaysnayn oo xaqa aqoon laakiin taqaana mas'alo kale oo ah inaan dhibtu dhicin waa dariiqo ah kullamaa xanuunkuu soo kacaba in loo badiyo uun tabletiska la siinayo si qofku uu yaro dareemi karo raaxo waa waxa dimuqraatiyadda loo yaqaano waxa laga yaabaa dadkiina badhan ay dimuqraatiyadda moodayaan cilmi maaha waa tajriba bini aadam uu sameeyo o atwaar kala gedisan soo martay waxay gaadheen xad ah dimuqraatiyadda tan waxaan ay leedahay oo baarlamaan ah oo intikhaaba oo quwa xorriyat aliclaama oo miidiya ah oo waxaan oo dhami waa shay waaxid waxa weeyaan heshiin weyne saynu u kala baxnaa bay yidhahdeen reer galbeed war heshiin weyne saynu u kala baxnaa waxa la yidhi ninkii 50% halunbaa tiisaqa ayay soconaysaa wantaha alamr waxay gaadheen go-aan odhanaya si kale ku kala bixi weyne diin iskuma waafaqsanin waxba maxaynu ku kala baxnaa waxa la yidhi waxaynu ku kala baxnaa ninkii 50% helow meesha xukun taadu ha ka socoto ka kalow maxaad qabanaysaa markaa waxa la yidhi qawaacid lucba dhowr sanaan anugu haysanayaaye adna waxaan ku siinayaa farsamada soo loo cayaaray wakaa dadkii ka soo dhaadhacsa inaad 50% hesho